24 Abriil ayaa lagu ballamay in la isugu soo laabto dhageysiga dacwad ka dhan ah gaashaanle Shucayb Cabdi Maxamed taliyihii howlwadaag iyo 7 askar booliis ah oo mid maqan yahay kuwaas oo ku wada eedeysnaa dilka Allah u naxariistay Cabdixakiim Cabdiraxmaan Ciise Dhagajuun oo 22 Janaayo sanadkan u dhintay rasaas ay fureen booliiska xafiiska xeelaalinta oo lahaa dalabka rogaal celiska kiiskan ayaa la yimid fadhigan sida ballanka ahaa guddigii baarakiiska marxuum Dhagajuun General Ahmed Ali Eybakar ayaa ka sheekeynaya heerarka kiiskan uu soo maray iyo sida ay u doorteen in natiijada kiiskan ay u dhigaan ku talagal dambi markii laba foon ayaa meesha taalay midka askarigu haayay iyo midka taliyaha saldhigu uu gacanta ku haystay Shucayb frequency number 1 hadaad isla tagtaan ayadoo booliisku ay saddex ku hadlaayaan booliiska kale ismaqlamaysan number 1 kaas labadiinu baa ismaqlaayay marka frequency labadooda ah ay isla galeen baabuurka qooqanti waa soo gashay markuu yiri wuxuu la joogay baabuurka saldhiga Waaberi oo uu saaran yahay taliyaha saldhiga Waaberi motion oo iskoolka 21 November gadaashiisa gadaal darbi luuq ah ayay ku wada jireen labada gaashaanle markii foonayaha laga yiri marka waa soo galay waxa la cadeynayaa in Shucayb uu soo cararay xabadana ka dhacday marka aan leeyahay aniga inuu ula kac riday markii maba gaarin ba markaas meel uu arki karo muxuu adarkay baabuur isjiidiya ayaa meesha yaalay meel uu ka arki karo baabuurka waa soo galay la leeyahay iyo meesha xabadda waa ka riday la leeyahay Shucayb maba arki karinba baabuurka laakiin xabadda Korneel Cabdiraxmaan Axmed Caraale oo kamid ahaa qubarada looga daray kiiskan gadaal ayaa fadhigan maxkamadeed ka sheegay in natiijo ku talagal ah oo soo baxday kadib markii uu si gaar ah u falanqeeyay cadeymihii ugu horeeyay ee la helay kaliya aniga mulaaxadaynay aan kor istaagnay waxa kamid ah taliyaha saldhiga howlwadaag wuxuu watay qori iyo xabadda la iskaga dhigo sida caadiga ah ee aan ognahay sabab iyo duruuf kalifi karta taliya saldhig oo xamar jooga inuu qori iyo boosh iyo bulad duruuf qaato ma jirin oo aan ahayn inuu halaago wax dilo dadkan wada saraakiil waana naqaana sida u shaqeeyda taliye intaasoo staff wata beeka ama lagu wardiyeenayo duruuf asaga kalifi kartaa inuu qori iyo qaato waxa la dhahaa iyo xabadda baasha celida ma jirto Mr. Xasan oo kamid ahaa guddigan markiisii hore iyo markii dambe ayaa isna ku dooday in marna uusan helin natiijo muujinaysa ku talagal inuu ku dhacay dilkii marxuum Dhagajuun waxaan ku sababeynaa oo baarista kamid ah waxaan wareystay labada taliya saldhigaan wareystay waxaan weydiiyay in Cabdixakiim joogistiisa magaalada ay ka warqabaan waxay ii sheegeen inaysan ka warqabin maalintii eelaboorka aadan cad uu ka dhoofayn oo dhaawac loo qaaday Turkigana labada cabdinbile midna hogaaminay midna ka dambeeyay inay labada taliya saldhig ahaayeen meeshaas anoo ka raadinayo inaysan xurguf iyo dagaal iyo wax ka dhaxay uusan jirin waxa kale oo jirtay taliyaha qaybta waliyo cadde Bashiir Durqan asagana aan weydiiyay Bashiir wuxuu ii sheegay in uu macnaa joogista taliyaha ka warhayay balse uu hadiido u waday alaab uuna weydiinin xataa uu ka xishoodo uu jirin ninkan uu daaleeyahay maanta oo yimide bal alaabtii waxba hadheena bal biri maalin dambe markuu nasashada ku soo nasto kadib weydii laakiin labada taliya saldhig waxay cadeen ninkan inaysan joogis ku ogeen qofka maadaama aan dalka lagu ogeenna aduu laftaada qof aan dalka ogeen ka soo loo dilay ma dhigi kartaa marka sida iiga muuqata marka ninkaas labadaas nin waxay ii sheegeen in uu gudoomiyaha joogo inaysan ka warhayn maalintuu baxayn eelboorka iyaga ay geeyeen dhinacyada dacwadda oo kaalin ku lahaa weydiimo guddigan ayaa iyagana ay kaga jawaabeen su'aalihii ay weydiiyeen ma jirto cidood ka qabtay dilka Allah u naxariistay marxuum Dhagajuun gudoomiyihii degmada Hodan oo ku baxay gacanta ciidamada ka tirsan booliiska laakiin doodadaga waxay ka taagan tahay ku talagal miyaa mise shil intii ay socotay isdhaafsiga dooda dhinacyada ay xafiiska xeelaalinta ciidamada qalabka sida doodii kala noqdeen Cabdiraxmaan Isxaaq Cabdullaahi iyo Xasan Abuukar Maxamed Buuqsane waxa uu General Cabdullaahi Buule kamid xeelaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida weydiistay maxkamadda
inay u dhegaysato marag ahaan, laakiin qareennada oo dood ka keenay kadib maxkamadda ayaa aqbashay in warbixin ahaan loo dhegaysto, sidaasna ay maxkamaddu xorriyaddooda ku siisay isla fadhigii maanta. xafiiska xeer ilaalinta ayaa isna ku adkaystay kiiskan in ku talagal uu yahay ayna tahay in loo ciqaabo eedeysanayaasha shanta ee jooga iyo mid ka maqan. marka haddii lacala ay jirto oo go'aan idaariyo soo baxay uu ahaa oo la dhahayay maxaa la yiraahdaa ii sheeg arrintaasi waa arrin kontrabaan oo midna aydoon la canshuurina qaad wadanka soo galay laga hortago booliiska sidaas amar lagu siiyay hadda in howlgallo la sameeyo dad la dhibaateeyo macnaha xogaa waa wax lagu darsadayaan u maleynaa maxkamaddu dabcan way fahmi kartaa waa arrin lagu dhex daray oo lagu dhex darsada ama dadka ka faa'iidaano ama si kale waxay doontaa ahaato ilaan dambi ama kiis markuu dhacayo dabcan dada faa'iido ugu jiraan oo mid walba kaalintii uu ka markhaati furay maxkamadda horteeda si bayaana u caddeeyey. maxkamaddu waxay dhegaysay doodii ku saabsanayd dacwaddan oo xafiiska xeer ilaalintu soo hordhigay iyo difaacii qareennadaba. maxkamaddu waxay dhegaysatay waxaan horgeynay waxay heshay caddaymihii marag muujinta ahaa oo ay ku jiraan caddayntii dhakhtarka ee sababta dhimashada, caddayntii forensiga oo caddaynaysa qoryahan in la bedelay oo aysan qoryihii dembiga lagu galay. marka dhammaan intaa la isku daro iyo caddaymihii qiraallada ahaa ee eedaysanayaasha qaar ka mid ay markhaatiyaalku maxkamadda horteeda ay ka qoreen, marka la isku daro dhammaan waxay caddaynayaan iyo maraggii iyo baarayaashii la dhegaystay dhammaan waxay muujinayaan in eedaysane Shucayb iyo eedaysanayaasha askarta saaxiibihiisa la jiray in ay falkan si bareer ah u galeen. kiisku inuu ahaa dembi la abuuray oo lagu talagalay qaad baan qabanaynaa qorshuu ah maqaar saar u ahaa. sidaa darteed maxkamadda waxaan ka codsanaynaa in ay go'aan cadaalada ka soo saarto iyadoo raacaysa aayaadka qur'aanka iyo qodobada aan ku soo eedaynay. wabilaahi tawfiiq. qareennada u doodaya eedeysanayaasha ayaa maxkamadda ka sheegay in lagu dhisay kiiskan rabitaan gaar ah lana marin habaabiyaha baariseedka galkan oo ciddii awoodda iska lahayd lala simay awoodo aan saameyn ku lahayn nidaamka cadaaladda. jamhuuriyadda federaalka soomaaliya cutubka 9aad wuxuu ka hadlaa awoodda garsoorka. qodobka 105 wuxuu ka hadlaa awoodda garsoorka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. wuxuu leeyahay farqada koobaad awoodda garsoorka waxaa u xil saaran maxkamadaha. marka intii aan ku guda jirnay su'aal weydiinta maragyada waxaa noo muuqday oo aan maxkamadduna ay nala aragtay in xafgalka gudoomiyaha Allah u naxariista in siyaasad fara badan iyo hay'adaha fulinta oo loogu talagalay siyaasadda inay ku jireen hay'adihii sharciga falgal noocaas u jiray. waxaan rabaa ayadoo arrintaas ay tahay tan guud ee dastuurka qodobadii looga xadgudbay inaan u soo laabto xeerka habka ciqaabta Soomaaliya. xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed qodobka 17 wuxuu ka hadlaa hay'adaha la gaarsiiyo warbixinada dembiga. hay'adaha la gaarsiiyo warbixinada dembiga waa garsoore, waa xeer ilaaliye, waa sarkaal booliska. intaasaa ku qoran. waxaasoo dhan waxaa ka sii yaab badan oo wax lala yaabo ah dadka lagu soo daray dhammaantood inay yihiin xigtada marxuumka. arrin ka sii yaab badan ahalada marxuumka waxaa wada ognahay in gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir iyo labada qofood kalantooda guddiga lagu soo daray gudoomiyuhu qod kama saxiixin laakiin guddi kale ku jira intaasoo dhan iyo marxuumka inay isku wada mid yihiin oo isku hal jufo ama hal famil ay wada yihiin. in famil la isku yahay ceeb ma ahan, in dadkaas ay qaranka u shaqeeyaan ceeb ma ahan, laakiin waxaa la yaab leh haddii hal qof xatee ka mid haddii lagu soo dari lahay dadka kalena Soomaali ay noqon lahaayeen waxbay noqon lahaydeen. laakiin intii lagu soo daray inay hal familkii marxuumka wada noqdaan natiijadaas si loo qaato uma taalo.
waa arrin oo aniga igu cusbeeday oo weli haddana maxkamadda hadda lala hor taagan yahay oo weligay aanan horay u arkin macnaha mudane guddoomiye maxkamadda sharafta leh waxaan rabaa aniga oo aan maxaa idhaahdaa ku dheeraanaynin markii la soo duuduubo dhacdada kiiskan marka la soo duuduubo waxay u muuqataa dhacdo ciidamada booliska ay gudanayeen waajib qaran si kama ana dilkaas uga dhacay xafiiska xeer ilaaliyaha khayr allaha siiye kama ma dhici karo khada waaya kama uma dhici karo ayuu leeyahay maxkamadda horteeda ayuu asugu ka qartay inuu khalad uu ka dhacay guraanadka fadhigan oo dadweynaha ay kala socdeen si toos ah telefishinka qaranka iyo bogagga kale ee warbaahinta gaarka loo leeyahay ayaa ugu dambeyn fursad uu ku sharixi kara la siiyey gaashaanle Shucayb Cabdi Maxamed taliyihii howlwadaag sida ay wax u dhaceen habeenkii 21 January mudane gudoomiye jaakad waa watay horta wacyiga jiro waqtiyadaas waxa jiray xogo ah in qof shakhsiyo saldhigyada iyo degmooyinka isku qarxinay sidii u dhacdaba taliyo unug oo dharcada oo 12 qof xukumo ayaa la isku qarxiyay oo degmada howlwadaag la isku qarxiyay maalmahaas saadaradeed hadaa libisata markasta howlgal aadayo sharciga ay ahayd jaakadaas xiriir jiray askartan isku ekeysay jiray si hadaa darajo xirata meesha aan ka howlgalayo waa meel bakaara ah riski ah ana gaari buruufina wata ma awoodo laakiin jaakadaas aan awooday jaakadan xiriir jiray markasta askartan isku ekeysay jiray waxa waa wax cad oo dhacdooyin oo howlwadaag ka dhacay laba mar oo qof shakhsi wax isku qarxiyay dad taliyo unug yaal ah marka inaad darajo xirato isku muujiso siyaasad waxa keentay sababahaas keentay inaan xirto jaakad bira si la mid ah eedeysanayaasha ayaa fursad la siiyay gaashaanle sare Xasan Al Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda oo looga fadhiyo natiijada heerka koowaad garsoorayaasha maxkamadda ciidamada qalabka sida darajadeeda koowaad Cabdi Qaadir Ayso warbaahinta qaranka Muqdisho.